Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal soo dhawaada halkaad naga daawanaysaan waa kanaalkeena YouTube-ka daawadayaal maanta barnaamijkan wuxuu daba socdaa barnaamijyadii ayaantan aan soo dhigi jirnay aad nooga barateen oo ahay sidee waxaas loo sameeyaa maanta waxaan soo qabanay lacagta doolarka ma ogtahay lacagta doolarka waxyaabaha laga sameeyo sidoo kale ma ogtahay qofka aasaasay lacagta doolarka sidoo kale ma la socotaa goormaa la soo saaray lacagtii ugu horeysay ee doolara sidoo kale ma ogtahay qofka sameeyay ama loogu yeero halyeyga doolarka Mareykanka sidoo kale intaas iyo in ka badan waxaad ku ogaan doontaa muuqaalkan gudihiisa ee soo dhawaada muuqaalkan socdo ma rabo inaan waqtigeeda kaga dhameeyo lacagta doolarka awoodda ay leedahay waxyaabaha ay tarto kaliya waxaan rabaa inaan saddex shay ama saddex qodob aan focus ka saaro ama aan ka hadlo mid ugu horeysa waxay tahay yaa aasaasay lacagta doolarka midda labaad maxaa laga sameeyaa lacagta doolarka midda saddexaad doolarka ama noocee ahayd soo dhawaada haday tahay marka ugu horeyso kanaalkan soo booqatid waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid waa hagaag yaa aasaasay lacagta doolarka Mareykanka nin la dhihi jiray Alexander Hamilton ayaa aasaasay lacagta doolarka isagoo ahaa wasiirkii koowaad ee maaliyadda ee dalka Mareykanka 1792 sidoo kale wuxuu ansixiyay Law of Act Coins uu aasaasay ama uu ansixiyay sanadii 1792 isagoo ahaa sidoo kale agaasimihii ama gudoomiyihii bangiga dhexe ee Mareykanka Federal Bank of America sidaas ayuu ku noqday Alexander Hamilton halyeyga lacagta Mareykanka ama halyeyga doolarka maxaa la dhihi jiray lacagtii ugu horeysay uu doolarka ama dalka Mareykanka uu sameeysto sidoo kale goorma ayaa la sameeyay lacagtii ugu horeysay ee dalka Mareykanka lacagtii ugu horeysay ee dalka Mareykanka waxaa la sameeyay kadib markii uu Alexander Hamilton uu ansixiyay heerkaas 1792 ama 1792 ayaa la sameeyay lacagtii ugu horeysay ee dalka Mareykanka ana lacagtaas la dhihi jiray continental currency ayaa la dhihi jiray lacagtaasi oo ahayd lacagtii ugu horeysay ee Mareykanka doolarka imika aan naqaano caadiga ah ayadana waxaa la soo saaray dawladda Mareykanka ay soo saartay 1861 ayaa la soo saaray lacagtan hadda aan naqaano oo loo yaqaan doolarka 1861 ayay soo saartay dawladda Mareykanka ama ay daabacday daawaday haddii aad halkan soo gaartay waxaa soo gaartay gabagabada ama gunaanadka muuqaalkan guud ahaan lacagta doolarka waxaa laga sameeyaa 75% suufka halka soo hartay 35% ama 25% kale oo soo hartan laga sameeyaa dunta marka labadaas shay ayaa laga sameeyaa guud ahaanba lacagta doolarka hadda naqaano sameynteedan waxay soo martaa dhowr marxaladood oo kala duwan waxay qaadataa muddo aad u dheer processka lagu sameeyo lacagta doolarka waa process aad iyo aad u adag ayadoo la adeegsanayo mashiino khatar ah ama mashiino qaali ah marka sameynta doolarka waxay soo martaa marxaladaas ayay soo martaa waxaan laga sameeyaa materialka laga sameeyo waa labadaas shay oo kala ah 75% suufka 25 halka 25 kale oo soo hartan laga sameeyo dunta labadaas la isku dar ayaa laga sameeyaa lacagta doolarka aad ugu maasan tahay daawashada muuqaalkan wixii comment ah ama fikir ah waxaad nooga reebi kartaa qaybta comments-ka aad iyo aad u maasantiin meel walba iyo goor kasta iyo waqti walba intahay wanaagsan waxaan idin leeyahay goodbye